بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta waxaan dadweynaha Soomaaliyeed mar kale war imiday bal in aan wax yar oo kooban si kooban in dalka xaaladiisa meesha ay marayso iyo xaaladda siyaasadeed meesha ay marayso intaba maanta waxaan ku sugannahay dal dowladnimadiisii ay riski ku jirto dal baarlamaankiisii labadii aqal ah uu qaybsan yahay dal dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadii ay qaybsan yihiin dal maxay ugu dambeeyey oo ahay ciidamadii amnigana hadda ay qaybsan yihiin meeshaas annagoo joogna dadaallo dheer ka bacdi iyo juhdi badan ka bacdi rajo cusub ayaa hadda soo baxday taladii waxay ku wareegtay oo lagu wareejiyey bacda shidda wa tacab prime ministerka dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego rajo fiicanaa jirta marka maanta prime ministerka Maxamed Xuseen Roble niman aqaano waaye aniga nin aad iyo aad qalbigiisu nadiif u yahay nin aad iyo aad go'aan qaadashiisu ay u adag tahay oo wanaag aan ku aqaano waaye maanta waxaan rabaa marka wixii kala qaybsanaan iyo dhibaatooyin in meeshaas ku haraan oo aan prime ministerka aan xooggeena iyo caqligeena aan isugu geyno si aan u xaqiijino muddo yaroo kooban xaaladda dalka uu ku sugan yahay kuma sii sugnaa kara muddo dheer muddo yaroo kooban in dalku doorasho ay ka dhacdo hoggaan cusub la doorto dowlad cusub la doorto ciddii Soomaali oo Ilaahay u calfa ha noqoto nabadna ay ku dhammaato wadada ugu gaaban ugu sahlan iyo juhdiga ugu fiican ee aan ku bixi karnaan waxay tahay inaan prime ministerka iyo xafiiskiisa inaan xoojino oo aan garab istaagno oo aan la shaqeyno golaha midowga murashaxiintu go'aanay ku gaareen in prime ministerka lala shaqeeyo waana la shaqeynaynaa tallaabooyinka ilaahay hadda prime ministerka uu qaaday waa bogaadinaynaa waa ammaanaynaa waa ididiile iyo ifafaalo fiican guddiga xalinta khilaafka ka dhex yimiday ciidamada amniga arrin soo dhoweyn mudan waaye shirki uu iclaamiyey iyo maalintii iyo taariikhdeedii la fix gareeyey oo la dejiyey waa arrin kaloo ayadana soo dhoweyn mudan bisha 20keeda in uu la isugu imaanayo shirki oo la wada hadlaayo tallaabooyinkaas ilaahay hadda uu prime ministerku qaaday dhammaantood ididiilaa ka muuqato rajaa ka muuqato laakiin dee inaan prime ministerka idab anta warabuka faqaatilaa inaan dhahno inaa haahunaa qaaciduun ma aha prime ministerka keligiisa hawshaan waa hawl culus asaa hoggaanka ah annagana waa la shaqeynayna haddii aan la yiraahdo waxaan rabaa inaan sheego ciidamada amniga ee magaaladan yimiday waa ciidanka qaranka waxay u taagnaayeen inay dastuurka difaacaan inay dimuqraadiyadda difaacaan wixii caalamku diiday oo siyaasiyiintu diideen oo ummadda inta badan ay diideen ayay ayaguna dhinacooda ka diideen ay ku kaalmeeyeen dhibaato kale iyo dembi ma ay geysan ammaanay mudan yihiin iyo in la abaal mariyo waan rajaynaynaa markaa in oo kii maya yiri iyo kaan dhihinba maanta in la isku yimaado ciidamadeena dib isugu ceshano cadowgii aan lahayn aan mar kale dib ugu jeesano horay u soconno sida xalka fiican oo ku jira waa midaas sidaas daraaddeed xafiiska prime ministerka iyo hoggaankiisa iyo guddiga mushkiladahaas xalinaya ee 11ka uu magacaabay dhammaan annagu waa la shaqeynay 24 saac magacaabistooda wixii ka dambeeyey ilaa shalay xalay haddana waa la shaqeynaynaa si buuxdaan ula shaqeynaynaa waxaan rabnaa xal degdega in la gaaro waxaan u hambalyaynaa muxuu ahay prime ministerka dadaalkiisaan bogaadinaynaa juhdiga uu wadaa rajo ka muuqataa dalkuna maanta rajo fiican uu leeyahay jiha fiican uu u jeestay jihadaas fiican uu u jeestaana u wada taagannahay ayadaan ka shaqeynaynaa aad iyo aada u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu